kulankan casho sharafta ayaa lagu soo dhaweynayay wasiirka cusub ee kalluumaysiga dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdullaahi isla markaana waxa lagu sagootinayay wasiirka hore kalluumaysiga Cabdiraxmaan Cabdi Xaashi waxaan lagu qabtay mid kamid ah hudheelada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kulanka waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sool sida coqaasha odayaasha ururada dhalinyarada iyo haweenka magaalada Laascaanood ugu horeyn xiriiriyaha kulankaasi ayaa ka warbixiyay magaalada Garowe wuxuu jaamacadda engineerinka ku bartay Muqdisho wuxuu la shaqeeyay burburkii wuxuu galay wadanka Kenya wuxuu la shaqeeyay hay'adda qaxoontiga ee UN inta ka bacdi wuxuu galay uu ka helay deganaasho wadanka Canada halkaas waxbarashadiisii ka sii watay 2016kii wuxuu ka mid noqday golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya 5 Agosto 2018 waxa loo magacaabay wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda rag iyo dumar waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan isugu nimid waa xafladii wasiirkeena Cabdullaahi Bidhaan aniga si gaar ah ayuu ii taabanayaa waa saaxiibkay iskuulka mar baan wada bilownay dalka qurbahana waanu wada joognay waa nin wax qabad weyn runtii meel kasta uu joogo ka qabta ama ha noqoto qurbaha ama ha noqoto dalka gudihiisa waxaan leeyahay Cabdullaahi aad iyo aad baan saaxiibku u salaamayaa xilka lagu magacaabay mid waxa weeye waa dawladeena caawa nin amaana iyo nin dadwa caawada waa dawladeena waxaan la oran karo waa dawladda caaw jirta waynu soo dhaweynaa horna u soo dhaweynaa haddana waa soo dhaweynaa waxaan leenahay ilaahay xilka wixii horena waan u duceynaa ilaahay waa la qabtay haddana ilaahay la sii qabto bogaadinaynaa oo aan sagootineynaa wasiirkii hore ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Master Cabdiraxmaan Maxamed Xaashi waxaanu leenahay wasiir waxa tahay wasiir aqoon-yahana nin loo baahan yahay dawladdu ayna ka maarmi karin baa tahay waanu ku bogaadinaynaa waxaana soo dhaweynaynaa wasiirka cusub ee loo magacaabay positionka bacda salaan xafladan caawa aanu ku qabanay hoolka shirarka magaalada Laascaanood ujeedadeedu waxay tahay inaanu ugu hambalyeeyno oo ku soo dhaweyno wasiiradayada qaybina ay soo shaqaysay oo aan ku sagootiyano qaybina ay hadii baydankeeda hadeer la magacaabay oo aan rabno inaan la shaqayno oo soo dhaweyno oo ay wasiirada ugu mudan 18 gobol ee Soomaaliya wasiirada laga magacaabay gobolada isasi waa wasiirada wadnihii Soomaaliya laga magacaabay oo ay u baahan tahay xilka lagu magacaabay Ilaahay kugu asturo Allah kugu asturo ayaan ku leenahay annagu waa gabdhii Sool iyo Sanaag iyo Cayn madaxweynaha farmaajo waxay ra'iisul wasaaraha khayre waxaan iyagana fariin culus u diraynaa Sool iyo Sanaag iyo Cayn way idin baahan yihiin wali kama aydan soo bixin waajibaadkii xilkeedii ka saaraa adna waxaan leenahay wasiir soo dhawow waanu ku hambalyeynaa hambaliyo Soomaaliyeed baa tahay si Soomaalinimo cadaalad ah ayaanu doonaynaa inaad uga soo baxdo xilka lagu dhiibay ilaahayna ha kugu garab galaan u leenahay assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku darayaa wasiirka awoluhu aanu isugu nimi xafladiisa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Warsame Bidhaan waxaan leeyahay khayr Allah ku siiyo xilkaagana Allah kugu sharfo waxaan se ku sheegayaa labadaas baad mid u noqonaysaa waxaan rajaynayaa inaad noqoto kii raadiyo mustaqbalkii wadankan iyo dadkan iyo hadii badankeeda leeyahay jagada lagu magacaabay hawsheedii iyo waxqabadkeedii
dawladda dee xaq baanu ku leenahay dawladda dhexe ee federaalka waxna nagama soo gaadhaan annagoo ku hadlayna magaca gobolada SSC waxaanu halkan hambalyo iyo bogaadin qiimale uga jeedinaynaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ninka ra'iisul wasaaraha noo magacaabay wasiir Cabdullaahi Bidhaan Warsame waxaanu leenahay aad iyo aad baanu ugu mahadsan tahay ra'iisul wasaare iyo madaxweyne magacaabista aad noo magacawday Cabdullaahi hore annaga u soo magacawnay oo soo dooranay yaaniga markii uu xildhibaanka noqonayay annagoo ah goboladii laga soo doortay ama dadkii soo doortay Cabdullaahi uga mahad celinaya ninka wasiirka ah Cabdullaahi Maxamed Warsame Master Bidhaan isagana waa u ducaynayaan ilaahay shirka ku ilaahay ku asturo xilka loo dhibay ilaahay ku asturo marka hore waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya u bogaadinaya dawladda sharafta leh ee uu hogaaminayo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraheena Xasan Cali Khayre waxaan kaloo salaamayaa golaha wasiirada waxaan kaloo salaamayaa baarlamaanka salaanta daan inta kaga soo gudbo Cabdullaahi laakiin waxaan leenahay dawladda Soomaaliyeed waxaan leenahay Ilaah baa idinku dhaarshay wax annaga wax noo burinina ummadda Soomaaliyeed oo madaxda u tiin madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo wasiirow ummadda Soomaaliyeed baan ka midnahay waa markii ugu horeysay oo kulan lagu soo dhaweynayo wasiir ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya lagu qabto magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Cabdixamiid Salaad SBS TV Garowe